caawa barnaamijka waa kii saddexaad waxaan idinkugu hayaa warbixinno aada cajiib u ah. ugu horeyn waxaynu ku bilaabaynaa sidaa la socotaan Maraykanku waxa uu in muddo ahba xayiraad ku hayaa dekedaha Iiraan. maraakiibta u socota iyo kuwa ka soo baxa dhexda u taagay. wuxuu taagan yahay marka Hormuz meel ku dhow ilaa meesha la yiraahdo Khaliij Cumaan iyo Bahrul Arab dhulkaas maraakiibtiisu joogaan. wuxuu doonayaa marka inuu cadaadiska iyo cunaqabataynta ku sii hayo Iiraan marka war ay soo saartay maanta galabta war weyn oo warbaahinta aad uga hadlayaan ayaa la soo saaray. Iiraaniyiintu waxay yiraahdeen haddii Maraykanku sida ugu dhaqsaha badan aanu xayiraadda uu nagu hayo qaadin maraakiibtiisa meelaha joogaysan ka tegin xataa ma isticmaali doonay dhehen bini aadam. war maxaa isticmaalaysa bini aadam ma isticmaalin. waxaan isticmaalaynaa kalluunka nooc ka mid ah oo dolphin la yiraahdo. dolphinkaas oo kalluunka nooc ka mid ah ayaanu isticmaali doonaa. marka kalluunka nooca dolphinka ayaan isticmaalaynaa. see u isticmaalaysaan? kalluunka ayaa miinooyin iyo qalab lagu xirayaa. wuu yaqaanaa markabkaas meel ka sokaysa fariin ha ku qabanina la dhaha. kalluunka soo leeyahay kalluun ma iska ilaalin kartaa? meeqa kalluunka haddaa iska ilaalisay kaneecadii badda doomihi wixii aad iska ilaalinaysa kalluun miyaa iska ilaalin kartaa? kalluunkiyaa waxaa la leeyahay waa lasoo habeeyey. kalluumadaasaa ku qarxin doonaa dheen maraakiibta waaweyn intaas leegaa ujeedaan markabkaas kalluunkaas ama malaygaas badda ku jiraa qarxinayeen. Maraykankii cabsi caaway la soo dirista marka. haddana eriyada kalluunkaas dolphinka la yiraahdo aadaa looga helaa. wuu dhooban yahay marka mid kasta makiya mid kaloo iska socdo markabka agtiisa maraa ma asagiya ma mid miinaysana kaalay adiga sheeg. haddaba sheekada la yaab kale aan idin tuso goorno waxaa qoray telefishinka Al-Arabiya wuxuu leeyahay Iiraan waxay ka baaraan degaysaa inay adeegsato dalaafin waxa la yiraahdo ama dolphinka kalluunka la yiraahdo kaasoo la miinaynayo oo miinaysan si ay u furto Hormuz meelaha Maraykanku ay fadhiyaan. haddaba warbixinta way sii socotay waxaa leeyahay Iiraan waxay diyaarsatay kalluunka dolphinka la yiraahdo kaasoo qaadi doona miinooyin si uu markaa u weeraro una qarxiyo maraakiibta Maraykanka ee go'doominta ku haya dhinaca dhaqaalaha waddanka Iiraan. sheekadaasu markay soo baxday warkanuu soo baxay shirkadihii internetka iska lahaa keeballo dhulka maraya badda hoosteeda jira oo internetka adduunka in badan oo ka mid ah isku xiraa iyaguna waray soo saareen. waa tahay haddaba telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay haddii ciladu ku timaado keeballada Hormuz badda hoosteeda maraya soo ma istaagi doonaan caalamka internetkiisa qaybo badan oo ka mid ah adduunka soo ma joogsan doonaan. haddaba warbixinta way sii socotay waxaa leeyahay keeballada badda hoosteed mara waxay isku xiraan Aasiya iyo Yurub ilaa qaybo ka mid ah Khaliijka iyo Masar ilaa Afrika ayay isku xiraan leey. waxaana la sheegay in badda Hormuz hoosteeda keeballada ama fiilooyinka internetka mara caalamka ay yihiin 7 keebal oo waaweyn. waxaa ka mid ah keebalka weyn ee isku xira Aasiya, Afrika iyo Yurub iyo shabakada la yiraahdo Falcon iyo keebalka la yiraahdo Gulf International. meeshaas marka iyaduna xabsiya timid mawjada. meeshan markab iyo doon kaliya ma jirtaa leeyahay. Iiraan waxay tiri waxaan ku hubaysanahay kalluunka badda ku jira annaga noo shaqeynayo asaa isticmaalaynaa. kalluun ma marka fiilo ka leexa iyo waxaan marka ma yaqaan asag waa miinaysay shirkadii marka wadnay farta ku hayaan. keeballadaas haddii si ula kacana loo jaro adduunka qaybo badan ah internetku ka tagi doona waa kala xirmi doona.
haddii si ula kacaan loo jar inuu dagaalka uu iska saameeyana waa sidoo kale waxay leeyihiin marka dagaalkan meel kastuu saamayn doonaa dhaqaalaha caalamka internetka wadamo badan ayaa ku xiran afrika oo kale dowlado badana ku xiran keeballadaasu ay maraan aasiya hindiya iyo bakistaan iyo dhulkan iyo khaliijka aaway dowladahan khaliijka oo dhan iyo masar iyo dhulkan oo dhan iyo waxaasoo dhan adduunka wixii ku xiraayay iyo adduunyadii kale iyo wixii oo dhan meeshaas toddobadaa keebalay fariimahoodu maraan hoostaas badda hoosteeda nin walba fariintiisa ku yaacina whatsappkan aad ku hadlaysid iyo emailkan aad diraysid iyo badda hoosteeda yaacayaan markaasay ninka u tagoyaan wax uun hawadaan la iska soo qabsanaa maaha ilaa waxaan adduunkan oo dhan keebalkaas ama fiiladaas badda hoosteeda la dhigay adduunyada dhan isku xirtay taasay wax walba ku socdaan marka haddii la jaro halkaa marka mushkilad weyna ka soo socota nimankii iiraaniyiintana haddeeba waxay keeneen malayga ama kalluunka ayaanu miinaynaynaa isagaa noo shaqaynayo maraakiibta nagta ka saari doona marka muddo yaraana u qabanaynaa haddii uu hawshaa samayn waayo meesha ka tegi waayaan mid walba meeshiisaa ku qarxin doonaa marka sheekadaasu wararka waaweyn ee soo kordhay ka mid tahay waayahay dhanka kale marka maxaa soo kordhay markabkii weynaa ee USS Gerald Ford waxay dhahaan moogtahay markabkan Gerald Ford la leeyahay waa midka ugu weyn adduunka ee diyaarada xambaara oo intaasoo gantaal ku hubaysan nuclear ku shaqeeya asaga keligiisa waxaa daba socda intaasoo maraakiiba markuu badda maraayo waxaa moodaa digaagad ama dooro socota oo ilmaheedu ay daba socdaan shimbir ilmaheeda saas u daba socdaan aa moodaa waxaa daba socda naftirkiisa waardiinayaan markabkaas marka kii ugu weynaa ah waxba waa ka qaadi waayay iiraan markii hore wuxuu kusoo feesteeyey venezuela maraakiibta maaragtay mukhaadaraadka wadaan qabanaya kanaan qabanaya alaabtaas markii ninkaa loogu bagay ninkii Trump ahaa meel walba venezuela ma u malaynayo iiraan aadoyn oo yimaanaya maahane nagtaa laga saaray maxaa dhacay meeshii dharka lagu dhaqaayaa dab ka kacay haddana maalinkii dambe Greega isagoo sii socda maxaa kugu dhacay مسقولي يا فريستي مسقول هاي وصولات وح وقبته يوح الدجال كجلواي هذا وحلي هاي مال والبا نبكي أيو جيستين إيران علابتي إنك كجسارين مر والبا مال ديسن أو مارتي نف كبحيسا يقولي وابشقي واي مركبكي هذا وحلو جسوا بدل مثل USS بوش مثل هذا الله كان كي مركب ما أنتو الشراعي وحويري ماشا باسو ملاي كلوني الله يسكو استعمالها لليه الله يسخر حراي ماشا بجوغي كراري وضيو واتقي مركب كي وينا واشرع على الولي هذا هو مركب تسو ورركي هو وينا أريكا لغا قرين هذا ورركي قدام بيي ننكا هرمس نسو غاريا وحي شيغيان إن مركب كوين مريكنكا ليرادو USS Gerald Ford ومانتا كبحي هالكاس ومعناها ولابانيو دالكا مريكنكا إنو كل نقونيو وهالكا كل لابانيو واي مركب كي هالكاسو مركب واشرع علي واكو داي مركب كاس وابحي دالكا كالي باكستان ايا عاو ورسو سارتي وحليهين ninka Trump ahaa wada hadaladii Iiraan waxbay soo dirtay isagu waxbaan wadnaa niyo mar walba adaan naga kala daadiyo Trump hadaladan weerar weyn aan qaadaya kana qaadaya naga joojiya khibila cali hawsha wada hadalaan ku jirnaa wada hadalka aan chance siin هذا وحقاضي سقاد يا كاورتاغن ما تقولون وحيا نقدر درجة إلين باكستانيتي لو في لا استوى تبركة واحرقين هذا عمر كان تصور كي قد بي باكستان أي صوصات باكستان ورا صوصات وحي شيكتي إسلام بعد إنه كذل بطي ترام إنه وحكن جوجيو كوسابسن قرار هذا أما قعامة ميلتريجا ويسكعنا واقع إنه جوجيو باكستان waxay sheegeen warbixin laga helay xafiiska ra'iisul wasaaraha in Trump ay weydiisteen
waxa uu wado inuu joojiyo qaraarkan ama go'aamadan militariga ee waaweyn ee ka dhanka Iran iyadoo marxaladan lagu jiro warwada hadal wadna ay leeyihiin xagga intuu istaagu wuxuu leeyahay bamka hadaan ku dhufto wala kala guura wuxuu ku dhufaraan male hadda maalin saddex maalina u qabto laha ma aragtay saddexdii maalin goormee dhabaad warkiisa ma maqasheen odaga marka waxa uu sheegay iyo wax kala cid barkaan xisaabsano Soomaali hadda Pakistan waxay ka joogtaa inuu qaati billahi ka joognaa hadda dagaal aadaysiina dagaal toos u aad mar rabidhe nabada rabaa leedahay nabadii ka shaqeynayna xagga ay istaagtaa waxa rabta iska sheegaysa adeero waxa naga joojiyay dheer caawo Pakistan iyo kartiye iska baareen waxay naga joojiyo waxa haddaba qaybtan waxaynu ku soo qaadanaa akhbaaraadka iyo wararka soo kordhay intaynu barnaamijka ku jirnay haddaba war muhiim ah ayaa soo dhacay ciidanka ilaalada kacaanka Iran waxay sheegeen 14 kamida ciidankooda inay dhinteen labana ay ku dhaawacmeen maxaa dhacay iyagoo kala furfuraya bambooyin iyo waxyaabo aan qarxin dagaalka gobolka la yiraahdo Zanjan ومالهي بمبوين كي جنتالها أمريكان كإسرائيل يكون عين أو عن قرحين أيه نمكا تجين سي أي بل أكل فرفران أو وحي أكل نظاميان وقرحيان وقعدان ضد كي اللي جفوي أيضا كي مركها وش كشقيني أيه وحلي هي وحكو قرحي بم أيه كو قرحي مركا وحي نادين أفر يطوان ماشى كل ما تلاقيها ونحرستو أيه لنا هاي لبك لنا ويكون dhaawacmeen alle marka inta dhimataaba badan baashu marka aad ay u qaraxdaa leeyahay marka waxay leeyeen mukhalafaadkaas waxyaabahaas maaratay oo dagaalka maaratay meelaha daadsan aad ay u badan yihiin gantaalo bambooyin aan qarxin meeshan de wax walba la isaga riday wadankan marka wixii la kala aruurinaya waa la habaynaya marka hawshaas iyaduna halkaas ay maraysaa qarash ciidanka ilaalada kacaanka warkaas ay soo saareen warkaas ayaa ugu dambeeyay barnaamijkeena habeenimo waa barnaamijkii saddexaad asxaabay soo kale waxaan idin xusuusinayaa maanta jimca ay ahayd inaan idin soo gudbiyay channelkeena kale ee qisooyinka nadaara laba qisadii jimcaha oo aad u xiiso badan dadka qisooyinka jecel iyaguna halkaas ay keeni doonaan inta aan mar kale kulmayno nabadgelyo